macadka cilmi baarista sidra iyo waliba wasaaradda deegaanka ayaa maanta dood cilmiyeed waxa ay ku qabatay gudaha magaalada Boosaaso. warbixinta warkan waxaa noo diyaariyay Maxamed Muuse Tarsan. dood cilmiyeedkan oo ku saabsanaa kalluumaysiga sharci darrada ah iyo dhibaatooyinka ka dhasha wasakhda lagu shubo badda Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. dood cilmiyeedkan ayaa waxaa qabtay macadka horumarinta iyo cilmi baarista Soomaaliyeed ee Sidra iyo wasaaradda deegaanka Puntland. dhanka dhaqaalaha waxaa ku taageeray hay'adda Adeeso. kulankan oo intiisa badan looga dooday sida looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ay badda Puntland ku hayaan shiriflayaasha shisheeye ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Mahad Aadan Bootaan oo ah cilmi baare ka tirsan macadka cilmi baarista ee Sidra. waxa uu sheegay inay dhibaato weyn ku hayaan badda Puntland warshado shisheeye oo wasakh ku shuba badda Puntland. caalamka waa la diidaa lamana ogolo maxaa yeelay nuclearka waxa badda inta badan loogu shubaa in lagu daciifiyo radioactive-ka. waxa daraasad lagu ogaaday in radioactive-ka badda lagu shubay uu ku daciifeen, laakiin si environment-iga iyo noolihii gudaha ku jira oo dhan uu saameynayo oo contaminated noqonayaan. kalluunkii contaminated radioactive buu qaatay ama plutonium waa soo qabatay, saxanku ku soo fuulaya dan noloshii bini aadamka ayuu saameyn ku yeelanaya. arrintaas waa disaster, waa wax laga naxo. maxamed maxamuud qulxiya oo ka mid ah barayaasha macadka horumarinta iyo cilmi baarista Soomaaliyeed ee Sidra ayaa wasaaradda deegaanka ka codsaday inay ka taageeraan wixii karaankooda oo la xiriira kalluumaysiga Puntland. waxaan jeclahay in aan wasaaradda deegaanka ka codsadno anigu ku hadlaya magaca macallimiinta, magaca ardaydaba dugsiga banaaxidda iyo kalluumaysiga ee dhawaan aan furay in ay naga taageeraan dhinac kastaba, maadaama iyagu hadda ay abuureen macahad mataqaanaa environmentiga ah. waxaan isleenahay kalaftigiisu muhiimad ka weyn buu leeyahay. waxaan mar labaad ka codsanaynaa wasaaradda oo hadda agaasimin nagala joogo in ay aad iyo aad noo caawinaan, dhinac kas naga caawinaan. gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada gobolka Bari Maxamed Cabdi ayaa xusay inay jiraan maraakiib shisheeye oo jiriif baan ku haya xeebaha badda Puntland. waxa weeye kalluunkii baa waxa lagu soo sida horarkii baa loo boobay, horarkii baa oran karaa. hadda 4 mayl hadda tagdid Boosaaso gudaheeda waxa guranay shisheeye ma wakiil yani dawladii bay sharci ka haystaan, ma yani waa wax yani aan sharci haysan ma ogaan karraa annagu, sababtoo uma dhawaan karro hubbaa saaran uma tagi karro oo dadkii in badan baa ka hadalay. marka arrinkaasna waa masiibo kale oo masiibo qaran madaxweynaha waa ka ku sheegay, laakiin wax qabad baa loo baahan yahay in dadkii ayagu ilaashadaan deegaankoodii, inay ilaashadaan wax soo saarkoodii. waxyaalaha lagu faano waa xoolaha iyo kalluunka. xoolihii waa ogtihiin waxa weeye waa ka gaabino, miyiga waa ka soo xaroon oo kulli magaalanimi xoolihii waa sii ciribtirmayaan. dadka waxa weeye hadda ugu yar ninkii 5 reer u deganaayeen, hal reer baa u degan hadda waa laga soo wada tagay. kalluunkiina sidaasaa loo guranaya. marka maxaa kheyraad noo noqon kara? gabagabadii qaar ka mid ah ardayda wax ka barata macadka horumarinta iyo cilmi baarista Soomaaliyeed ee Sidra ayaa SBC la hadlay. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan uga mahadcelinaynaa hay'adda Sidra iyo wasaaradda deegaanka kulankan aad ku sharafta badan ay soo qaban qaabisay, taasoo looga hadlayay deegaanka badda. waxaan u sheegaynaa dawladda Puntland ama waxa madaxdeeda kala duwan maadaama aan nahay ardaydii ugu horeysay oo waxa weeye maariin ah oo laga bilaabay Puntland, waxa weeye inay ka qayb qaataan sidii macadkan waxa weeye u soo hor u sameyn lahaa. magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi Cali. waxaan ka mid ahay ardadan kulliyadii ugu horeysay ee Puntland ee laga hirgeliyo barata cilmiga badda. marka qaarkood deegaanka markaan magaalada joogno la dhahaa maxaad barataan, oon dhahna waxaanu baranaa maariin. dad baa waxay noo qabaan inaan macnaha nahay ma ciidan baatiin baa inta badan la dhahaa. deegaanku aad buu uga liitaa dhanka badda barashadeeda. maadaama aan nahay marka ardayda ugu horeysay ee bilowday kulliyadan, waxaan rajeynaynaa inaanu dawladda Puntland ka helno taageero weyn.
qabashada dood cilmiyeedkan ayaa ku soo aadaysa xilli badda puntland ay jiriif xoogan ka wadaan maraakiib shisheeye oo si sharci darro ah uga kalluumaysta badda puntland halka kuwa kalena ay rukhsad ka haystaan dowladda puntland. maxamed muuse tarsan, idaacadda iyo telefishinka SBC, magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.